maanta halkan waxaan rabaa inaan maarataanay arrin muhiim oo maartay in walaalkay ku dhawaaqay inaan maartay ra tacliiqiyo ka daba tago marka waxaan ku arkay arrin maartay aad iyo aad maartay u muhiim ah oo walaalkay ka hadlayo oo ah hantida ummadda iyo sida ay maarataanay loogu khaldamo ee loo maartay yana loo khiyaameeyo ama maarataanay loo isticmaalo runtii inankaasi oo maartay runtii aan ugu bogaadinayo maartay inuu ictiraafo oo sheego wixii maartay intii wasiirka ahaa ka dhacay maartay hantidii loo dhiibay wax kaga baxsada uu sheegay waa fadiilo maaha ceeb maaha runtii waa nin maarataanay maanta oran karno ilaahay ha ku dambi dhaafo cudurrada aad sheegtay xanuunada aad ka qaaday xoolaha ummadana aad ilaahay ka caafiyo oo ka bogsiyo يعني وحبان كوفلن مانتا waxaan leeyahay niga walaalka waxa la maxamed jaamac abgaal horta waxaan leeyahay ilaahay khayr ku siiyo hana ku caafiyo dambi dhaafna allah ku siiyo ummadana waxaan leeyahay ninka odayga waxa la wixii maartaanay inta wasiirka aha ku dhac lumiyay hal laga saamaxo oo hal loo cafiyo sababtu waxa weeyaan xoolaha ummaddu kulba maartay ma hadaan ilaa ummaddu day wada cafiso oo ay ka maartaanay qofkii ka saamaxdo maxaa yeelay ninka tuugihi ama maartay ninka khalad sameynaya ee xoolo umad qaadanayay wuxuu markuu qof kaliya dhacayana waa nin qof kaliya dhacay markii xoolo umad dhacayana waa nin ummadii oo dhan qarankii oo dhan dhacay weeyaan marka Soomaalidu ma haysato kolkay leeyihiin ninkaasi yana bangalu ka dhistay meeshii kursiga u fadhiyay baabuur buu ka iibsaday baqaaro ka dhigtay ay leeyihiin waa in amaanayaan baad moodaa laakiin waa nin halaagsamay oo koolihii ummadda ku tagrifalay oo xoolaha ummadaasina ilaa kuwa walwalna suuqa naanabaya kuwa masaakiinta maartaanay meel kasta baadiyo magaalada ku dacdareysan kuwa maartaanay isbitaalada buka iyo ku kasto oo maatiya oo dhibaataysan xoolaha wax ku leeyahay weeyaan hadhowna korku ilaahay xisaabinay waxa soo dhan baa ninkii ashtakayn doona haduu madaxweyne yahay haduu wasiir yahay haduu maartaanay DG yahay haduu nooc kasta yahay haduu ku anta ururiye yahay haduu baan joogo nin kasta waa in ogaada wixii xoolaha dadweynaha ka qaatay inay noqon doonto waxaan la saamixi doonin oo maartay dadkuna dhammaan ay ashtakayn doonaan yaana waxa la mid ah hantida maguurtada ah sida mesela beeri waaweynaa dawladdu lahayd iyo mashruucyadii biseerihii seerayaashii waxa kamid ah mesela baabuurtii iyo maartay cagafyadii ummaddu lahaan jirtay nin kasta oo hanti dawlad haystay waa in ogaada ummadan inuu dhacay oo ummadaasina ay hadhow wada ashtakayn doonto qiyaamaha oo deedna intaas oo dhan xaqoodi ilaahay ku xukumi doona ninkaas marka waxa la maanta ninka walaalkay maartaanay saaka subaxdii aan ku waabirisay YouTube ka mar aan ku arkay horta runtu way ka oohisaa waan ilmeeyay oo waan aad baan ugu ooyay maxaa yeelay kolkaad wixii aad ictiraafayso qiranayso qiraal ay tahay iyo waliba heeska la daba dhigay oo runtii ahaa hees aad u qaali ah xaqayga oo ahaa maartaanay hadii maartaanay laga dhigo xil lagu dhiibo oo maartaan lagu aamino oo hanta ummadda lagu dhiibo oo hawlaha arlada u shaqeey lagu raahdo ha maartaanay ha is odhanin cid kuma arkaysa afka buuxso ha is odhanin cid kuma arkaysa qabiil ku argooso ha is odhanin cid kuma arkaysa daar ka jeexo waa hees cajiib oo ha runtii oo ay oran doonaan qaarkood waa hees kacaanka laakiin kacaan ma ahna waa hees taabanaysa meel fog taabanaysa maxaa yeelay waa xisaabtan qofku markuu leeyahay maartay ilaahay baa ku arkaya cid kuma arkaysa korku is odhanin macna ilaahay baa ku arkaya marka waxa weeyaan walaalkay waxaan horta ugu ducaynayaa arinta maanta soo bandhigay inay kuwa kalena kaga daydaan waxna ku qaataan waa arin qiimo weyn le weeyaan runtii maartay isagu waxa laga yaabaa inuu si yar sahlan ayaan u soo daayay laakiin arin qiimo weyn le weey waxaan salaahay maanta maxamed jaamac abgaalo khayr allah ku siiyay adigoo wasiirka boosaha laga dhigay waxaan muddo yar oo gaaban wasiir boosaha iyo isgaarsiinta waxay yihiin bal yaqaan Soomaaliland ay tahay meel maartay aan lacag lahayn oo macna lahayn hadii saad sheegtay mishaarkiina maalayacna noqday wixii yar lagu dhiiban aad wax ka taabatay de maxaad u malayni ninka intuu maartaanay Abu Dhabi tagay Dubai tagay
waddankii soo iibiyey nimankan saasay wasiir ahaa ee waddankii soo iibiyey ee maanta 27 kiiloomitir oo isku weer ah oo barbar ah oo airportkii ruushku dhisay ee maartaanay bixiyey ee lacag soo siistay maxaad u malayn nimanka dekadii barbaraad iibiyey ee meel maartay maxay weel la yiraahdo oo shaydaana oo waxba dhisaynin oo waxba khayr keenaynin nimanka maartay intay lacag ka qaateen gacanta u galiyay ee dadkii bacmashtarkii maanta yaaban yihiin ee dadkii waddanka lahaa ay yaaban yihiin ee dekadii waxba lagu kordhinin wali ilaaha daan waxba lagu kordhinin waxna laga dhisin intaasoo sanadoodna ay marayso maxaad u malayni ninka hantidii ummadda qaatay ee magaalooyinkii oo dhan iibiyey shacabkii Boorama shacabkii Hargeysa guryihii ummaddu ay lahayd ninka iibiyey maxaad u malayn ee malaayiin qaatay ee jeebka ku ritay haddaba haddii aad leedahay waxa xanuun ba ka qaaday waa sax maartay wixii khalad xanuun ba laga qaadaa laakiin ugu Ilaahay baa ku naxariisanayo cashir baa lagu siiyay adiga cashir buu Ilaahay ku siiyay laakiin maxaad u malayn kuwa ku sii baray ee ku sii naaxay ee ku sii cadcadaaday caroosho ay maartay dadka kale ku dhawaato agtooda joogay carooshooda ku dhawaatay ee guryaha fooqya ka dhistay ee maartay malaayiin ka dhigtay maxaad u malayn walaalow ninka dadkii arkaya maartay ay baarlamaan wax lagu sheego oo diyaga laftooda maartay aan macna lahayn oo aan maartay yana dawaco waddanka cunaysa aan ka ridi karin iska dhibaaxe maxaad u malayn kuwa wasiir lagu sheego oo mid walba xafiiskiisa aad baad uga cabanayso yana iyagu ku tagrifalay oo waxay doonaan sameeyay ilaahay khayra seenkii loo jiray maxamed xaash ee mar wasiirka maaliyadda laga dhigay ee yiri koobka shaaha ah ana soo iibsanaya laygama keeni karo xafiiska xoolihiisa laygama keeni karo ninkaasna Hargeysa bid la joogaa anu maartay dadka waan la socdaa nin walba wasiir walba halku maro iyo waxay sameeyaan kuwana waxa weeye waxa loo soo dhibay dibadaha ayaa rag qaar waxa looga soo dhibayaa hanti dad gaali soo bixinayaan oo la leeyahay masaakiinta maartay waddanka halka joogay Soomaaliya halka joogay waxa wax ugu qabta oo malaayiintii ku dhisanaya hoteelo waaweyn oo ku dhisanaya maxaad u marayn noocyada maartay waxada ee tuugnimada ku shaqeeya ee ummadda dhex jooga ma yare adiga waxaan ku leeyahay Ilaahay baan ku baryaynaa inuu caafimaad fiican ku siiyo dambi dhaaf fiican ku siiyo Ilaahay ku dambi dhaafo ummadana waxaan u oranayaa ninka iska cafiya waxa weeyaan markaas bal kuwa inta badan rujiyo dib isku fiirsada goormaad cuni doontiin ma qabriga aad ku cuni doontiin qabriga masasba jooga kugu sugaya waa weyn oo xagga maartaanay ka yimday maartaanay naarta jahannamo la yiraahdo ku xisaabsan ayaa jooga waxa jooga maartaanay maraa'ig wax garaacda oo maartay baara waa weyn oo sabarad ah ku garaacda ayaa joogta bal inta hadaba duuga ku nooshahay masaxni bariisa iyo mijiran qaadkay waa weyn ad cuntaan waxaanay bad ka cuni ee hadana maartay imtixaan inta kana wad ka tagi doontaa marka waxaan leeyahay nin kasta oo ummadda u shaqeynayay ha ogaado inay cid walba arkayso ha ogaado maalka ummadani ma yaro khayraadka waddanka soo baxa ma yaro waxa dibadda laga keenay ee ummadu ku deeqanay ma yaro laakiin yaa qaata waddankii waxba laga bedelayo waddankii uu ooyaa وعولن يهيون لامية ملء بيع العبب الهرجيسة وما ضمير دامنايو سند والبنا وحلا هذا بيه هرجيسات هاوي ورشدي بربلاد سبرك حاجة مرتي هاوي يقولي أمد بلرف لا ودسة كوي علي ما دعدك تحقق قدام بيجي حاجة وحاسي قاتي ما أنت يعني والبوين أجادا استيد هاوسك حقوق مري وين والبو أجادا inay ummadani kuyu u soo gali doonto qiyaamaha oo ay oran doonto waa kan tuugina dhacay ilaahu noo qabo dadweynaha jahannam loo tarxay doono nolosha adduunyada waa wax gaaban waa mal hayaatu dunya illa mataa'ul ghurur adduunyada nolosheedu waa wax yar oo kadis ah oo kada ah oo lagu geeysa dadka walaalo garow iska cuno arabikhina iska cuno waanad ku naaxi mar dawrkaaga kun iska bismilayso hana xoolaha ummadana cunin wabillahi tawfiiq